kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan ka hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadda janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaaladina soo socda muuqaalkan share gareeya maasanidin soo dhawaada saaxiibayaal Leo Messi ayaa haatan joogo boos oo ku dooran karo ku ciyaarista xulka qarankiisa Argentina ama kooxda kubadda cagta Barcelona marka la gaaro bisha October kadib markii dib ugu soo laabtay kooxda halyeeyga Barcelona ayaa si joogto ah uga ciyaari doona kooxda Barcelona kulamada soo socda si kastaba ha ahaatee Messi ayaa boos adag istaagi kara bisha dambe markuu xulkiisa qarankiisa Argentina ciyaari doono laba kulan oo sharareebka koobka adduunka kulanka labaad ayaa ciyaari doonaan 12 maalin ka hor kulanka ugu horeeya ee El Clasico horyaalka ee Barcelona la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Real Madrid xilli laba toddobaad loo baahan yahay in karantiin la geliyo qofka laba dal uu kala gudba marka la eego koobka adduunka 2022 ayaa noqon doono tartankiisa ugu dambeeyay heer caalami xidig ayaa la filayaa inuu hubiyo in xulkiisu gaaro tartanka koobka adduunka ka dhici doono wadanka Qatar 2022 kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ciyaari doonta kulan lagu magacaabo John Gamber Cup waxaa la ciyaari doontaa kooxda LG ciyaartaas waxaa la daawan doonaa 2 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika sanad walba ayaa la dhigaa koobkan Barcelona ayaa ku martiqaata koobkan kooxaha ka ciyaara qaaradda Yurub wargeyska Daily Telegraph ee dalka England ayaa soo wariyay in Barcelona ay ku dhowdahay inay la saxiixato xidiga kooxda Ajax Sergio Dest inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan kooxda Barcelona ayaa isku dayaysa inay soo gabagabayso heshiiska cusub ka hor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga xagaagan inkastoo dhibaato dhaqaale uu sababay xanuunka safmarka ee coronavirus 19 sano jirkan reer Holland ayaa kamid ah xidigaha ee bartilmaameedka ka dhiganaysa kooxda Barcelona suuqa kaliibsiga si loogu xoojiyo booska daafaca garabka midig ee kooxda Barcelona wargeyska ayaa tilmaamay in Barcelona ay ku dhowdahay inay dhameystirto heshiiskan ka hor dhamaadka suuqa kaliibsiga xagaagan iyadoo ku garaacaysa dhammaan kooxihii isku dayay inay gacanta ku dhigaan adeega laacibkan xiliyadii la soo dhaafay wargeyska ayaa wuxuu intaas ku daray in kooxaha Bayern Munich iyo Manchester City ay xiiseynayaan inay la soo saxiixdaan laacibka daayarka ee Sergio Dest laakiin Barcelona ayaa kaga cadcad marka la fiiriyo ayagoo waxaan la filayaa in heshiiskan ay dhameystiraan maalmaha soo socdo waxaa xusud mudan in qandaraaska Sergio Dest uu ku joogo kooxda Ajax oo dhacay xagaagan 2022 wuxuuna 19 jirkan ciyaaray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 30 kulan asagoo u dhaliyay kooxda Ajax 5 gool ugu dambeyntii tababaraha kooxda Barcelona Koeman ayaa si lama filaan ah uga hadlay mustaqbalka Luis Suarez ee garoonka Camp Nou Luis Suarez ay wararka sheegayaan inuu ku dhow yahay inuu ka tago garoonka Camp Nou kadib markii macalinka cusub Barcelona uu sheegay in waryaarkan reer Uruguay uusan ku jirin qorshihiisa xilli ciyaareedka soo socda wargeyska Sports dalka Spain wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Koeman kadib markii kulanka saaxiibtimo ee wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Gonya ee kooxda kubadda cagta Bulgaria ee ku badisay 3 gool wuxuuna ka hadlay mustaqbalka Luis Suarez la xiriirinayo naadiga reer Talyaani ee Juventus sidoo kale warar qaar ayaa sheegayaan in suurgalnimada Luis Suarez uu sii joogi doono garoonka Camp Nou marka la fiiriyo in Barcelona aysan doonin in Luis Suarez intan ka harsan qandaraaskiisa sida ku xusan rabitaanka ciyaaryahanka ka hor intuusan ogolaan inuu kansalo heshiiskiisa haddaba tababaraha cusub kooxda Barcelona Koeman ayaa wareysigan bixiyay wuxuuna yiri haddii aad ku dhamaato arinta Luis Suarez uu sii joogo wuxuu mid noqon doonaa ciyaartooyda kooxda waxaan la hadlay asaga mana ogin wili inuu sii joogi doono ama inuu baxayo ayuu yiri tababare Ronald Koeman gudiga gunaanadkii ayaan soo gaarnay saaxiibayaal muuqaalkan waxaad kala socoteen YouTube-ka channelka Barka 252 saaxiibayaal muuqaalkan share garee la wadaaga taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa caawa ciyaari doonto koobka lagu magacaabo Gamber Cup waxaana la ciyaari doontaa kooxda LG waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Camp Nou Stadium ciyaartaas waxaa la daawan doonaa 2 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika waad ku maasantaa muuqaalka waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo